dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku guuleysatay 30 sano kadib bixinta shahaadada duulimaadyada hawada diyaaradaha qaata ruqsadda ayaa waxaa ka muuqanaya sumadda Soomaaliya waxayna meesha ka saaraysaa baahidii horey ee diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ee ruqsadaha uga qaadan jireen dalal kale. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shahaadada duulimaadka hawada iyo ruqsadda duuliyanimo guddoonsiiyay shirkadda diyaaradaha Freedom Air iyo duuliyaal Soomaaliyeed kadib markii uu ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay bixinta shahaadooyinka duulimaadka hawada Soomaaliya oo ay dowladda Soomaaliya bilowday. waana inoo furan tahay bixintii shahaadada duulista hawada. waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo duuliyaasha Soomaaliyeed iyo diyaaradaha Soomaaliyeed ee haysta laysanka. runtii aniga ka ra'iisul wasaare ahaan duuliyihii halkan ka hadlayay dhowr jeer ayuu safar ii qaaday xafiiskaygana waa kala dardaarmaa in markasta priority-ga ama muhiimadda koowaad la siiyo diyaaradaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan duuliyaasha Soomaaliyeed ee haysta laysanka. wasiirka gaadiidka ee duulista hawada iyo wasiirka amniga gudaha oo munaasabada ka hadlaya wax lagu farxo ku tilmaamay in Soomaaliya ay bixiso ruqsadda duulimaadka hawada. hadda waxay ku galay warkii waa la soo wareejiyay hadda maanta xafladan u joogno diyaarado ilaa 3 diyaarado ama ilaa hadda inay qaateen taargada loo yaqaan 60 ama 6 Oscar oo wadan kasta uu leeyahay calaamad ama taarga uu leeyahay diyaaradaha qaatay oo laga register galay maanta marka xafladan u taaganaan u joogno waxay tahay in la siiyo certificate ugu horeeyay shirkadda Freedom online runtii aad iyo aad markii ugu horeysana waxay ahayd dadka ugu horeeyay taargada ka qaatay haddana inaan ugu hambalyeeyno aan ugu mahad celino in ay yihiin shirkadda ugu horeysay oo diyaaradooda ay qaadanayso ay ku duulayso shahaadada ay leedahay Soomaaliya oo 6 Oscar maanta hawada adduunka markay marayso inaan la dhahayn diyaaradaha markii hore aan maran hadii waliba kuwa dibadaha aada wadamo kale taargooda inay ku duulaan. waxaan baleenayaa wasaaradda aviationka iyo shirkadda Freedom Airlines oo fursadan heshay. waxaan rajaynayaa in shirkadaha Soomaalidu ay leeyihiin ay fursado sidaas oo kale ay heli doonaan. waxaa jira dabcan marka aad ku dhoofaysid ama aad ku duulaysid license saan oo kale ah oo ay bixisay dowladda Soomaaliya waxaad leedahay privileges oo ayaan lahayn diyaaradaha kale oo ku duulaya certificate-ka ama laysimada ay bixiyeen dowlado kale. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo daahfuray bixinta shahaadooyinka duulimaadka hawada Soomaaliya ayaa wasaaradda gaadiidka hay'adda duulista rayidka uga mahad celiyay dadaalka ay ku bixiyeen in Soomaaliya ku guuleysato arrintan muhiimka ah. sidoo kale waxaan rabaa airportkan oo aad cariiri u ah lagana cabtay hadda ayaan farayaa markhaati ayaana ka tihiin nin dhintay nin fog markhaati kama dhiganayay qof halkan joogay qof halkan iga fiirsanaya markhaati uga dhigaya garoonka hortiisa dhul ay garoonku leeyahay ayaa ku yaallo waa in baaxaddaas loo ballaariyaa qofkii sheegtana wasaaradda amniga ka codsaday in maxkamad lala tiigsado dhulkaasna garoonka loo fidiyo sidoo ugu dhaqsiyaha badan waana ka sugayaa dizaankaas hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala idmo. Nasr Bashiir Ali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.